السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحلان جنال كمر كلا السودة وهذا أدي هذا ومهدسنتهين halkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago gabar kale oo Soomaali ah oo ku lug lahayd kiiskii Feeding Our Future oo shalay la xukumay haddaba imisa sano ayaa lagu xukumay kadib xukunkeedana maxkamadda maxay ka tiri hadal kooban oo halkaasi ay ka jeedisayna waan idinla wadaagaya haweeneyda cadaanka ahayd ee ururkii Feeding Our Future ee hadda la xiray ee lacagtan faraha badan dadka Soomaalida ah siisay oo iyada la xukumay bishii la soo dhaafay 22keedu 41 sano ka badan lagu xukumay oo hadda racfaan iyaduna xariisatayna waan idinla wadaagaya Amy Back FBI-da iyo ciidamada Secret Service-ka oo ilaaliya madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta dawladda oo shalay shaaciyay in la fashiliyay weerar la doonayay in lagu bartilmaameedsado munaasabadii feerka tartanka UFC-da ee habeenkii Axadda ahayd lagu qabtay aqalka cad raggan la soo qabtay maxay qorsheynayeen sidee lagu ogaaday meeqa gobol oo kala duwan ayay ka soo kala jeedaan iyadoo walibana lagu daba joogo tira dad kale oo iyaguna qorshahaasi ku lug lahaana waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada maalnimadii shalahayd waxaan idin sheegay in haweeney Soomaali ah isniintii la xukumay Najmo Ahmed oo kiiskii Feeding Our Future ku lug lahayd isla markaana iyada iyo ninkeeda uu soo dhiibay arbacadii la soo dhaafay Saciid Cabdullaahi Ereg lacag 4.2 milyan ah ay ku eedeysnaayeen iyadana shalay 14 bilood lagu xukumay oo ah 1 sano iyo 2 bilood sidoo kalena waxaa jirtay in shalay mar kale la xukumay haweeney Soomaali ah oo iyadana la yiraahdo Caasha Jaamac oo iyadana kiiskaasi Feeding Our Future ku lug lahayd musuqmaasuqaasi maqaayad ayay ku lahayd Rochester Minnesota waxaana lagu eedeynayay inay qaadatay lacag ka badan 5 milyan oo dollarka Mareykanka haddaba shalay waxa lagu xukumay 6 bilood oo xabsi federaal ah marka 6deeda bilood ay dhameysato 6 bilood oo xabsi guri ah ayaa ku xigta 6 bilood oo xabsi guriga ah marka ay dhameysatayna waxa ku xiga 1 sano oo supervised release wax la yiraahdo ah oo dhaqdhaqaaqeeda lala soconayo halka ay tagayso iyo sidoo kale meel kasta oo aadayso lala soconayo waxa sidoo kale lagu amray inay si degdeg ah ku bixiso ku dhawaad lacag nus milyan dollar ah oo 449,000 oo dollar in ay si degdeg ah ku bixiso haddaba Caasha Jaamac waxa ay ciidamada Marshal Service-ka isku soo dhiibi doontaa oo xabsigeedu uu bilaaban doona 16 bisha July ee soo socota ayaa xabsigeeda uu bilaabanaya dacwadoogayaashu waxa ay doonayeen 16 bilood in lagu xukumo oo ah 1 sano iyo 4 bilood laakiin arintaasi ma aysan dhicin oo hadda waxa lagu xukumay 6 bilood oo xabsi federaal ah 6 bilood oo xabsi guri ah iyo 1 sano oo dhaqdhaqaaqeeda lala soconayo waxa markii la xukumay kadib Caasho ay maxkamadda ay sheegtay in ay ka shalaynayso in musuqmaasuqaasi Feeding Our Future ay ku lug lahayd waana ka xumahay in uu dhaco ay tiri waxaan rajayn lahaa in uusan dhicin waxaana qareenkeeda sidoo kale maxkamadda uu sheegay in 4 sano ee la soo dhaafay sidii daruur madow ama culays garbaha inuu ka saaran yahay in ay Caasho ay dareemaysay marka macnaha waxay muujinaysaa kulay inay si aad uga xun tahay in musuqmaasuqaasi ay ku lug lahayd dhinaca kale haweeneydii madaxda ka ahayd ururkii Feeding Our Future ee Amy Back ururkaasi oo la xiray isla markaana ah ururka dadkan Soomaalida lacagtan faraha badan siiyay iyaduna lacaga kickback ay ka qaadanaysay ayaa hadda waxa ay xukunkeedii lagu riday 22kii bishii la soo dhaafay oo 41 sano iyo 6 bilood ahaa hadda racfaan ayay ka qaadatay marka maxkamaddu wali ma aysan shaacinin xilliga dhageysiga ugu horeeya ee racfaankeeda uu dhici doono waxaana sidoo kale Amy Back markii la xukumayay lagu amray inay bixiso 243 milyan oo dollar in ay dawladda ay u soo celiso marka hadda racfaan ayay ka qaadatay Amy Back xukunkeedii 41 sano ka badnaa waan arki doonaa xilliga dhageysigeeda iyo haddii waliba racfaankeedana laga aqbalo dhinaca kale arintan la yaab kale ayaa shalay ciidamada FBI-da iyo ciidamada Secret Service-ka ee madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta dawladda ilaaliya ay ku dhawaaqeen waxaan ogeyn habeennimadii Axadda oo dhalashada madaxweyne Trump Axaddii ay ku beegnayd oo 80 jir uu noqday in tartan
ka UFC-ga la yiraahdo oo feerka aan waxba la isku laharin oo cage fight-ka la yiraahdo in lagu qabtay aqalka cad oo la yiri madaxweynaha dhalashadiisa ayuu ugu dabaaldegayay laakiin dowladdu waxa ay leedahay waxa ay bilow u ahayd dabaaldega sanad guurada 250aad ee xornimada Mareykanka ka soo wareegatay waana markii ugu horeysay oo aqalka cad tartan noocan oo kala ah oo feer ah lagu qabto haddaba ciidamada FBI-da iyo kuwa Secret Service-ka ayaa 4 maalmood ka hor inta uusan feerkaasi dhicin waxa ay fashiliyeen qorshe dhalinyaro amaba dad ka badan 20 qof ay wadeen taasi oo ay doonayeen tartankaasi feerka UFC-da aqalka cad ka dhacayay in ay ku weeraraan haddaba raggan maxay damacsanaayeen sideese lagu ogaaday waxaa jirtay nin dhalinyaro ah oo 19 jir ah oo sawirkiisa aragtaan oo la yiraahdo Tyson Prober oo gobolka Ohio ka soo jeeda in hooyadii ay wacday ciidamada FBI-da waalidka mararka qaar caruurtooda haddii ay arkaan waxyaabo aysan horay u samayn jirin iyagoo samaynaya in ay report gareeyaan ama ay sheegaan waa ay fiican tahay hooyadan marka waxa ay tiri wiilkayga $3,000 oo lacagtiisa qalin jibinta ahayd ayuu hub kala soo baxay marka hore shakiga koobaad taasi ayaa keentay marka labaad online-ka waxa uu kala xiriirayay dad aysan garanaynin ayuu online-ka kala xiriirayay marka shakiyadaasi oo idil markii isweydaarsadeen arbacadii oo 10ka bisha ahayd ayay FBI-da la xiriirtay feerkuna 14ka bisha ayuu aqalka cad ka dhacayay FBI-du marka wiilkii ayay soo qabteen Tyson Prober oo 19 jirka ah markaas kadib taleefankiisa ayaa la baaray taleefankiisa ayaa waxa laga ogaaday inuu qayb ka ahaa qorshe la maleegayay oo la doonayay aqalka cad in lagu weeraro habeenkaasi xilliga tartanka UFC-da uu ka socday taleefankiisa maxaa laga helay taleefankiisa waxa laga helay marka sawiradan muujinaya waxa ay doonayeen diyaarado drone ah marka hore inay qaraxyo intay ku xiraan ay xarunta ku weeraraan markaas kadibna kooxo snipers ama shiishka ku takhasusay ayaa meelo ka dhow lagu diyaarin lahaa si dadku markay kala cararaan dadka la yiraahdo high value targetka oo dadka madaxda sida madaxweyne ku-xigeenka wasiiradiisa dadka bilyaneerada joogay in ay toogtaan ayaa qorshuhu ahaa marka qorshe la diyaariyay ay FBI-da arkeenba oo diyaar u ahaa in la fuliyo markaas kadib FBI-da iyo ciidamada Secret Service waxay bilaabeen inay dabagal ku sameeyaan ababkii ay dhalinyaradan ama dadkan ay ku xiriirayeen ababka ay ku xiriirayeen waxa kamid ahaa abka la yiraahdo Signal, Simplex, Discord iyo waliba TikTok ayay ku xiriirayeen markaas kadib waxa la soo qabtay 4 qof oo kale oo isagu oo 5 ku yahay waxa kamid ah dadka la soo qabtay Brian Umar Rowa oo California ka soo jeeda Umar hadaad aragtaan dadkan Mexicaankana waa ay la baxaan Michael waxa kamid ah sidoo kalena Alan Thomas oo isaguna California ka soo jeeda iyo sidoo kalena waxa kamid ah ninkan la yiraahdo Daniel Eskridge oo isaguna Missouri ka soo jeeda waa 32 jir aaba waliba 5 caruur ah leeyahay marka waxaa jirta in dad kale oo 9 ka badan hadda lagu daba joogo maxaa yeelay dadka qaarkood waxay isticmaalayeen username magacooda ma aysan isticmaaleen marka weli dabagal ayaa socda xitaa ma aysan doonayn ciidamada Secret Service in arrintan ay shaaciyaan laakiin shalay ayaa si lama filaana taliyaha FBI-da Kash Patel waxa uu bartiisa X ku soo qoray in 10kii bishan howlgal la doonayay tartankii UFC-da ee aqalka cad ka dhacay 14kii bisha dad doonayay inay bartilmaameedsadaan in gacanta lagu soo dhigo waxa la doonayay ilaa iyo dadka kale ee dabagalka lagu hayo inta laga soo qabanaya inaan la shaacin baaritaankan socda laakiin isagii ayaaba fashiliyaba arrintan nacaan ayuu ku yahay taliyaha FBI-da markii yarkii Charlie Kirk la dili jiray waa kii yiri waa la soo qabtay oday markii hore la soo qabtay yiri qofkii ka dambeeyay waa la soo qabtay waxa sidoo kale jirta haweeney Nancy Godry in laga afduubtay dhowr bilood ka hor magaalada Tucson ee gobolka Arizona ilaa ay haddana la laayahay maamadaasi waxa ay dhashay gabar u shaqeysa telefishinkan la yiraahdo ABC oo la yiraahdo Savannah Godry oo yiri xitaa qofkii afduubtay waa la soo qabtay markastaba waa uu ku degdegaa go'aanka hadda ciidamada Secret Service ee madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta dawladda ilaaliya arrinta shalay si aad ah ayay uga caroodeen maxaa yeelay baaritaan ayaa socday baaritaankii ayuu fashiliyay dad fara badan ayaa dabagal lagu hayay marka sida muuqata hadda howlgalkan waxa waa howlgal ballaaran sida dawladdu ay sheegtay waxana ay doonayeen dadkan in ay bartilmaameedkaasi ay amaba weerarkaasi ay fuliyaan waxa laga ogaaday taleefanka ninkan la yiraahdo Tyson Proper markii la soo qabtay group magacooda la yiraahdo Hunters oo ugaarsadayaal micnahoodu ay tahay waxana groupkaasi ku cadda sawiradan aad arkaysaan qaabka
weerarkan loo fulinayo iyo sidoo kale marka la fuliyo kadib qaabka loo baxsanayo ayaa meesha ka muuqatay. munaasabadaasi habeenkaasi waxaa kasoo qayb galay ilaa iyo 4,000 dad ka badan oo dad lacag leh mas-uuliyiintii dowladda ay ku jiraan. sidaas darteed marka waxa ay doonayeen in ay fuliyaan, waxaana lasoo qabtay hub, rasaas, qalabka xabadda difaaca, waxyaabahaas oo idil ayaa dadka 5 qof ee lasoo qabtay hadda guryahooda laga helay. marka gobollo kala duwan oo Mareykanka ayay kasoo kala jeedaan. sida aad arkaysaan hadda dadka 5 qof waxaa laga soo kala qabtay Ohio, Missouri, California iyo weliba Nebraska. kuwa kalena ilaa iyo 20 qof ayaa loo maleynaya dadka guruubyadan ku jiray in ay dhammaayeen amaba ay ka badnaayeen. marka 5 waa lasoo qabtay, 9 kale oo hadda muhiim ah ayaa lagu daba jiraa oo ciidamada FBI-da iyo sidoo kale kuwa Secret Service-ka waxa ay leeyihiin baaritaan ayaan ku sameynaynaa. haddaba marka dhalinyaradan maxay ka caraysnaayeen? dhalinyaradan sida muuqata waxyaabaha ay ka caraysnaayeen waxaa ka mid ah in ay horta dowladda ay aad u necbaayeen. sidoo kale waxay necbaayeen dadka bilyaneerada ah. sidoo kalena Epstein Files ayay ka xanaaqsanaayeen. arrimaha diimahana sidoo kale waa ay ku jireen oo iyagana ay ka caraysnaayeen diimo kala duwan inkastoo aan la shaacin. marka baaritaankan waa baaritaan socda. hadda dhalinyaradan lasoo qabtay waxaa lagu eedeeyey in ay doonayeen khiyaano inay maleegaan oo dowladda ay ku weeraraan iyo sidoo kalena isku day dil inay dilaan saraakiil ka tirsan dowladda iyo sidoo kale shaqaale ka tirsan dowladda, in ay hub sharci darre ay haysteen oo ay doonayeen inay dembi qalalaaso wata ay ku fuliyaan iyo sidoo kale isku gudbin hubkaasi oo la doonayay in dembiye lagu galo. Tyson Prober hadda dacwadaha lagu soo ogay dacwadahaasi ayaa ka mid ah. marka baaritaankuni weli waa uu socdaa, waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha. laakiin waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka waxaan leeyahay caruurtaada haddii aad aragto waxyaabo aadan horay u arki jirin iyagoo sameynaya ama hub sida AK-47 soo iibsaday ama sidoo kalena online-ka kala xiriiraya dad aadan garanaynin in aad ku wargeliso booliska. maxaa yeelay ma ogid waxa uu doonayo inuu sameeyo, arrintaasi oo laga yaabo in adiga dib ay kugu soo laabato islamarkaana saameyn ay kugu yeelato. marka hadda hooyadan ayaa wiilkeeda Tyson Prober ka shakisay inuu $3,000 hub ku soo iibsaday dad aysan garanayn oo la xiriirayay. marka shakigaasi markii ay qaado kadib ayay FBI-da iyo ciidamada ammaanka ay la xiriirtay iyo weliba ciidamada booliska. sidaasi ayaana qorshahan diyaarsanaa oo la doonaya habeenkaasi in la fuliyo lagu fashilay. waan arki doonaa waxyaabaha kale ee kasoo kordha iyo haddii dad kale oo dheeri ah lasoo qabto. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idinla sida iyo nabadgelyo.